aad baan salaam marka hore galab wanaagsan maqrib wanaagsan inkastoo intahayba farxadana ka codsanaya subscribe iyo like. Mucaaradka Suuriya ayaa si toos ah ula wareegay xaaladda waddanka Suuriya iyo dhammaan maanta markay ahayd saacad subaxnimo. Sidoo kale madaxweynihii dalka Bashar al-Assad ayaa dalka baxsaday isagoo la sheegay inuu qaatay diyaarad ilaa haddana lama oga runtii diyaaraddii halka ay ka degtay. Marka waxaan doonayaa aan ka hadla arrintaas maadaama runtii aan aqoon fara badan u leeyahay. Runtii intii aan ku noolaa waddanka Turkiga ayaa runtii waxaan aad asxaab u noqonay dad badan oo Siiriyaan ah meel ka wada shaqeynay meel ku wada nooleen wada tahriibnay. Runtii aan runtii garanaya xaaladahooda iyo siyaasadoodii in badan ka mid ah. Marka runtii waxaan doonayaa bal inaan ka hadlo arrintan Siiriya ka dhacday Turkiga sidee u saameyn doontaa maxaa laga filayaa xaaladda. Marka waxa dagaalamay oo xukunka qabsaday hadda waa jabhad kaliya. Marka Suuriya waxaa ka jiray jabhado fara badan oo ilaa 10 gaaraya. Laakiin beri dambe waxa waddanka qabsaday waa hal jabhad. Jabhadaas marka hadda maanta markaad eegto wararka iyo waxa hadlaya waxaa dul saaran su'aalo badan waxaa dul saaran magaranaysaa waxaa la eegaya qaabka u dhaqmaan. Jabhadan waddanka qabsatay ee Bashar waddanka ka saartay waxaa la eegaya qaabka u dhaqmaan. Marka saddex qaab u weyn baa laga eegaya marka hore. Waa midda koowaad jabhadan waddanka qabsatay maadaama ayagu ay dagaalameen guushan keeneen jabhadaha kale ee waddanka ka jiray sidee ula dhaqmi doonaan. Waayo ilaa dhowr jabhadood baa waddanka ka jiray oo aad u fara badan. Marka su'aasha ugu weyn ee la isweydiinayo waxay tahay jabhadan waddanka qabsatay jabhadaha kale ee dagaal kula jiray ilaa iyo 13 sano sidee ula dhaqmi doonaan. Macnaha talada wax ma ka siin doonaan ma soo dhaweyn doonaan mise kaligood ayaa xukunka isku koobi doona. Su'aasha ugu weyn waa taas. Waa midda labaad waxay tahay Bashar al-Assad ilaa aabihiis ilaa asaga waxaa jira dad fara badan oo mucaarad ah oo aan hubaysnayn laakiin waddanka ka maqnaa. Rag fara badan baa jooga dibadda ku nool oo mucaarad ah laakiin aan hubaysnayn. Jabhada waddanka qabsatay ragga mucaaradka aan hubaysnayn sidee ula dhaqmi doontaa ma soo dhaweyn doontaa xukunka wax ma ka siin doontaa bas ayaga isku koobi doona. Waa su'aasha labaad la isweydiinayo. Su'aasha saddexaad waxay tahay wadamada reer galbeedka sidee ula dhaqmi doontaa. Jabhadan waxay noqon doontaa sida Taliban jabhad waddankeeda ku kooban oo arrimaheeda kaliya ka hadasha. Waxay noqon doonaa jabhad iswaasho oo magaranaysaa wareer iyo dhibaato keenta. Jabhadan sida sheegayaan reer galbeedku hadday jabhad caadi noqoto xukunkana macnaha qaybiso caadina iska dhigto waxaa laga yaabaa in magaranaysaa macnaha faraha laga qaado. Laakiin haddii waxa la iswaasho oo macnaha reer galbeedka isku waasho oo magaranaysaa arrimo kale wax ka hadasho oo ragga mucaaradka xukunka u diido waxaa laga yaabaa in magaranaysaa iyadana magaranaysaa lagu kiciyo jabhadaha kale waddankana magaranaysaa foodo dhibaato u noqdo. Marka su'aalahaas badan baa dul hoogan. Marka si guud waxay tahay jabhadan haddii ay ka hor timaado reer galbeedka iyo siyaasadda dalka ay ka leeyihiin waxaa laga yaabaa in la kulanto dhibaato badan oo magaranaysaa in ayadana kooxaha kale mucaaradka lagu kiciyo mucaaradka dowladda la soo geliyo jabhadaha kale lagu kiciyo. Marka su'aashaas dul taagan jabhadda waayo jabhadan waa kaligeed hadda wax dalka waxeeyay laakiin jabhado kale fara badan jira. Turkiga haddaynu ka hadalno anigu muddooyin badan baa Turkiga ku noolaa waa tagay in badan baan tagay. Runtii Turkiga waxaa ku nool Siiriyaan aad u fara badan oo ilaa waxaa lagu sheegaa 10 milyan baa lagu sheegaa 10 milyan lagu sheegaa. Turkiga marka aad runtii maanta waxaa hadlay wasiirka waxaa arrimaha dibadda wuxuu yiri waxaan ka rajeynayaa jabhaddu inaysan noqon muxuu ahaaye mid dhibaato u keento wadamada dariska. Turkiga horta sina u saameynaysa. Horta Turkiga marka la sheekaysto dadkii hore Siiriyaanka soo galay waa la soo dhaweeyay waji fiican. Laakiin waayadii dambe maadaama dadkii tirada ka bateen waa la nacay carabtu waa la nacay. Dhaqaalaha xumaaday dadkii madaxa la galay. Dad fara badan oo Turki ah ayaa waxay aaminsan yihiin dhaqaalaha xumada iyo wareerka inay keentay dadkan Siiriyaanka iyo dadkan macnaha wasagolootiga waddanka jooga. Tii waxay sababtay marka in dowladda intay kacdo in Soomaalida soo raafo soo magaranaysaa tarxiilo in carabtii maalin kasta tarxiil lagu wado Siiriyaanka Ciraaqiyiintii. Marka hadda markii jabhaddu ay bilowday inay magaranaysaa ay qabsato gobollada qaar sida Idlib iyo Xalab ay qabsatay dad fara badan oo Siiriyaan oo Turki noolaa
ayaa bilaabay inay magaranaysaa ay soo laabtaan. Markay soo laabteen maxaa dhacaya marka dadka Suuriyaanka ee Turkiga jooga horta waa labo. Dad shaqaystay oo waddanka wax gashaday oo hanti leh. Waata inay tadaawaneyseen markii lagu kacay waatii xogaa hanti badan oo Syrian la baabiyay. Marka dad waddanka hanti ku leh oo shaqaysta iyo dad qaxooti ah. Dhammaantood hadda markay soo laabtaan dhinaca dhaqaale ahaan Turkiga way saameynaysaa. Taas sababtoo ah mid oo dad fara badan oo Syrian ah oo magaranaysaa hantidooda Turkiga soo aaminay intay dagaalka socday ayaa hadda haddii Syria nabad noqoto oo jawi dego laabanaya. Dadka fara badan hantida waddanka ay geliyeenna way la baxayaan oo waddankooda Syria aadayaan. Anigu in badan waa Syrianta aan la sheekaystay, saaxiib baan ahayn, waa wada tahriibnay, meelaha wax ku wada cunnay, meelaha ka wada shaqaynaynay, in badan la sheekaystay. Syrianka markaad eegto Soomaalida waxbay kala duwan yihiin. Horta waxaan u sheego Syrianka ka arto iyo Ciraaqiyiinta inta badan waa dadka kaliya Soomaalida aaminsan waaye. Qofka Syrianka markuu arko lagama yaabo inuu magaranaysaa kula hadlo Carabi ama Turki macnaha English ama Turki. Qof Syrianka ah markuu arko qof Soomaali ah wuxuu kula hadlaa Carabi. Xitaa anuu Carabi si fiican u garanayn ayay magaranaysaa igu qasbi jireen inaan ku hadlo Carabi. Syrianka iyo Ciraaqiyiinta waxay ku leeyihiin waxa taa Soomaali waxa ku jirta dowlad Carab. Marka waa dad macnaha wayna aaminsan yihiin marka kuwaas. Marka Syrianka ayuu tahriibaya oo dhibaatoonaya oo ordaya haddana markasta waxay jeclaayeen inay ku laabtaan Suuriya. Kuleeyahay Suuriya waxaan ka yimid Xalab, waxaan ka yimid Xumus, waxaan ka yimid Idlib kuleeyahay. Qofkaas waddankiisa wuu jecel yahay. Laakiin dadkaas oo dhan ayagoo haddana macnaha rajo xumo haysto oo macnaha nidaamka macnaha Bashaar al-Assad neceb ayay haddana magaranaysaa ay haddana waddankooda jeclaayeen. Ama dadka ugu badan runtii arkay kasoo jeedaan waxay dadka Sunniga runtii oo ka yimid Xalab iyo Idlib ka yimid runtii maana doonin nidaamka Bashaar maana doonin aad runtii uga soo jeedeen. Markaas waxay niyadda ku hayeen in waddankooda ku laabtaan. Halka Soomaalidii waddankii wuxuu hadda fiican laga cararayo laga ordayo tahriib markaas. Marka Syrianka isagoo tahriibayo oo ordayo oo dhibaatoonaya marka tiraahdo maxaa u tahriibsaa wuxuu ku leeyahay nolosha rabaa inaan dhiso laakiin wuxuu ku leeyahay Syria wuxuu ku leeyahay meel loobin. Marka Syria runtii waa xaalad wakaas maalmaha soo socda ayuu magaranaysaa eegi doonaa halkii wax marayaan isay noqoto. Sida hadda in sheegay waxa weeye jabhadda maanta waddanka qabsatay waxaa la eegayaa bulshada u dhaqmaan. Hadda maanta Bashaar al-Assad wuu cararay waddanka ka baxsaday diyaaradiisa ilaa hadda meel ka tagtay lama oga. Laakiin ra'iisul wasaarihii oo meesha ku jira ay u tageen way soo kaxeeyeen gurigiisa geeyeen. Ra'iisul wasaarihii wuxuu sheegay in magaranaysaa awoodda uu si macnaha wareejin doono. Marka jabhadda indhaha lagu hayaa bulshada u dhaqanto. Macnaha reer galbeedka si ula dhaqanto sida ula dhaqanto mucaaradka iyo dadka jabhadaha. Waayo Soomaaliya bari waxay ahayd markii jabhadda waddanka soo galeen jabhadda wuxuu ahaa nin kasta oo fikir gaar ah wata. Caadid fikir gaar ah watay, kuwan fikir gaar ah wateen, SSD fikir gaar ah watay.